isu diyaarinayna inaan hawlgal ciidan samayno haddii ilaahay yidhaahdo isku tashina aan gaarin ciidamadan anaguna waa ciidamadii ka soo noqday furmihii hore waxaan rajaynayaa inaanan hadda kadib istaagayna socodaan bulubid iyo ku dhaafayno socon qorshahaasaan hadda loo yaalo go-aankaasaan qaadanay soconno amisom iyo UN iyo ciddii nagu caawinaysa ahlan wasahlan laakiin boqolkiiba 80 waxaan rabtaa isku tashi inaan la nimaado haddii ilaahay waayo kolleyba hadday joogaan iyo hadday tagaan iyo mar walbaba ciidanka soomaalida oo baasar u noqon doona waxaan u baahannahay dowladda soomaaliyeed aan ugu baahnay cid walba lagu sheego in loo baahan yahay in la sameeyo isku tashi xooggan oo ciidanka soomaalidu inuu ka muuqdo waxqabad wax la sameeyo muujiyana inuu isagu hawlgeli karayo haddii ilaahay taasaa go-aankiya waana soconayna insha allah aad bay u mahadsan